السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريدة iyo bogaadin kadib daawadayaal meel wada joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ganacsiga. Maanta waxaynu ka hadlaynaa kambaniga McDonald's. Shirkadda McDonald's waxa aasaasay qoys Irish oo Ingiriiska ka soo guuray dabayaaqadii 1930yadii, kuwaas oo soo gaadhay California. Walaalaha Richard McDonald's, Maurice McDonald iyo aabahood waxay ka shaqayn jireen suuqa. Labada wiil waxay ahaayeen kuwa ka shaqeeya studio sawirada lagu qaado. Aabahoodna wuxuu wadada dhinaceeda ku iibin jiray cunnooyinka dariiqa lagu gado. waxaana la oran jiray meheradiisa The Airdrome, isagoo ku iibin jiray cuntooyinka sida hamburgerka iyo hot dogska in muddo. Labada wiil ee walaalaha waxay shaqo ka bilaabeen meheradii aabahood iyagoo u bedelay magacii meherada McDonald's Barbecue. Kadib markii ay ogaadeen faa'iidada ka soo gasha hamburgerka, waxa ay go'aansadeen meel gaadiidka lagu xareeyay oo ay lahaayeen inay u bedelaan meherad cunno oo weyn, iyagoo magaceedana u bixiyay McDonald's 1948. 1952 waxay u baahdeen dhismo cusub si ay u gaadhaan laba hadaf: kow, horumar muddo dheer ah oo faa'iido leh, iyo muuqaal bilicsan oo indhaqabad leh. Waxay la wadaageen bulshada inay u baahan yihiin architects. Dad badan oo ay waraysi la yeesheen waxay ku qanceen oo ay qaateen Stanley Kroc. Nashqadii uu ninkaasi u sameeyayna waxay noqotay mid dadka soo jiidatay. Taasina waxay u horseeday in aragtidii meherada ee ahayd goob cunto lagu cuno oo la fadhiisto loo bedelo cunno gacanta lagu qaato oo fudud. Intaa kadib waxay u jihaysteen inay helaan iskaashi ganacsi ama goobo ganacsi oo ay adeegooda ku soo bandhigaan, iyagoo heshiiskoodii koobaad la galay Nile Focus oo ahayd xarun shidaalka iibisa. Halkaana waxay ka fureen meheradoodii u horreysay. Si ay u sii socoto mashruucoodaasi, waxay heshiis la galeen Ryan Kroc oo ahaa rugcadda aad ugu xeel dheer heshiisyada noocaasa, kaas oo aasaasay mashruuca McDonald ee la yidhaahdo habka McDonald, oo markii dambena noqday iskaashiga McDonald. 1959 McDonald waxay furtay hudheelkeedii boqolaad. McDonald waa shirkadda labaad ee ugu weyn shirkadaha sameeya cuntooyinka fudud, waxayna ku caan tahay samaynta hamburgerka, chicken, french fries, soft drink, milkshakes, salad, desserts iyo kafeega. Xarunta ugu weyn ee McDonald waxay ku taallaa Chicago. Wadarta hantida guud ee McDonald waxa lagu qiyaasay $32.8 bilyan oo dollar, waxaana ka shaqeeya 210,000 oo qof. waxay ka howlgashaa McDonald 37,850 oo goobood dunida oo dhan.